waxaa maanta abaaro 10kii subaxnimo saaka soo gaaray magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar marwada koowaad ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland Aamina Sheekh Maxamuud Tirde Aamina Waris iyo wafdi wasiir ah oo heer kacaysay kuwaas oo ay ka mid yihiin wasiirka waxbarashada Samsam Cabdi Aadan wasiir xigeenka wasaaradda caafimaadka Nimco Xuseen Qowdhan agaasimaha samafalka madaxtooyada Aamina Maxamuud Diiriye iyo xubno kale oo tiro badan waftiga ayaa waxaa tuulada Kiridho ku dhawaad 28 kiiloomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada madaxda gobolka Saraar Caynaba kaga hortagay mas'uuliyiinta heer gobol iyo mid degmo kuwaas oo horkacaya barsaabka gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali ugu dambeyntiina waxaa waftiga marwada loo soo galbiyay xarunta maamulka gobolka Saraar ee Caynaba halkaas oo ugu diyaar ahaayeen dadweynaha aad u tiro badan oo taagnaa soo dhaweynta waftiga waxaana ay dhammaanba mas'uuliyiinta heer gobol iyo mid degmo iyo waftigu kala hadleen dadweynaha afaafka hore xarunta maamulka gobolka Saraar ugu horeyn gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Salabaan ayaa waftiga uga mahadnaqay booqashada ay ku yimaadeen magaalada madaxda gobolka Saraar ee Caynabo xildhibaan Aadan Tarabi Ogle xildhibaan Cabdiraxmaan Ismaan Shaad Chief Caaqil Cali Xirsi Axmed gudoomiyaha ururka haweenaha qaranka ee Naaw ee gobolka Saraar Marwa Aamina Aadan Nuur iyo xubno kale oo tiro badan ayaa dhammaantood isaga daba maray soo dhaweynta ay dadweynaha reer Caynabo u muujiyaan dhammaanba mas'uuliyiinta noocan oo kale ah ee soo gaala gobolka Saraar barsaabka gobolka Saraar Ibrahim Xaaji Xasan Cali oo isna madasha hadallo bogaadin iyo dhiirigelin isugu jira ka soo jeediyay ayaa tilmaamay in shacabka diyaar u yihiin xukuumadooda dhan walba hadday noqoto soo dhaweynta dhiirigelinta iyo wax la qabashadaba waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha hooyada qaranka ayaanu leenahay soo dhawow waxaynu hadalkan inoo fura waxaan leenahay soo dhawow iyada iyo waqtiga ballaaran ee xukuumadda ka socda wasiiradda waxbarashada dambeyntina waxaa hadalka soo afmeertay marwada koowaad ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland Aamina Sheekh Maxamuud Tirde Aamina Waris oo ka dhawaajisay inay salaan uga sido shacabka reer Caynaba madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayna sidoo kale sidoo deeqta kulaha oo gudida abaaraha qaranka u soo dhiibeen dadkii masuubooyinka daadad wax yeelayeen tuulada Tukub kuwaas oo ku nool deegaankaasi deeqdaasi oo dhamayd $12,000 Mareykanka ah Caynaba maanta lagu soo dhaweeyay aad iyo aad baan idin salaamayaa salaanka gacal ku dheehan idinku salaamayaa waxaan salaan qaaliga idinka sidaa madaxweynaha oo igu balamiyo oo yidhi haylaawin inaad salaan iyo hambaliyana iga gaarsiiso sida gaarsiiso inaad iga gaarsiiso ayaan idinku salaamayaa waxaan kaloo ka wakiila wafdigan sharafta leh ee ila socota ee ilaa Hargeysa ilaa Burco iga soo raacday ee haweenka Soomaaliland hormoodkoodii madaxdoodii wasiiradoodii hooyooyinkii qaaliga ahaa gurbajoogii ay ila socdaan iyagana salaan sharaf leh baan idinka gaarsiinayaa salaan bay idinku soo booqdeen iyo wanaag waxay kaloo wafdigan haweenku madaxda ka yihiin ee ila socota igu guubaabiyeen oo ay aad iyo aad igu dardaarmeen tuuladii Tukub ee arrintu ka dhacday inagoon tegaynaa noqon waanaanu tegaynaa waa soo booqanayna walaalayaal heer Caynabow heer Saraareedow wajiyadiina kalgacalkiina wanaagiina mar quriya ismu bedelan maanta iyo maalmihii hore nuudiin nimaynu ku jiray halganka dheer kalgacalkii iyo wanaagii abariga nagu soo dhaweyseen ayaa maantana nagu soo dhaweyseen oo weliba sii laablaabteen oo anigu shakhsiyan aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaya sharafta ay yeesheen walaalayaal midnimada Soomaaliland halganka Soomaaliland qadiyadeeda ugu jirtay doorka ka qaadateen hadda reer Saraareed tihiin wax qarsoon ma aha waa wax ummadoo dhammi wada ogtiin waxa sii cadayseen maalintii dhaweyd
aynu u dabaaldegaynay sanad guuradii 20aad aynu dalkeena la soo noqonnay wacdarihii aan dhigteenna waanu idin daawanaynay waa ku mahadsantii waanaanu idin ducaynay qof uma wada salaami karaya dadka halkan jooga salaan gaara oo sharaf leh ayaan waxaan salaamayaa ciidanka nabadgelyada iyo ciidanka qaranka ee heeganka 24 saacadood habeen iyo maalin u heegana dalkeena hambalyaan u dirayaa salaan qaaliyana aniga iyo waqtigayguba waa u diraynaa dhalinyarada reer Saraareed gobolka Saraareed xildhibaanadeeda shacbigeeda hooyooyinkeeda qaaliga ah ee khusuusan dumarka haweenka wax walba hormoodka ka ah Soomaaliland horumarkeeda hambalyo ayaan idin leeyahay walaalayaal booqashadan yar ee gaaban maanta waxaan u nimi abaara waatay dalkeena oo dhan soo mareen ilaa bari ilaa galbeed wayna saameeyeen isku duubnideennii iyo wax wada qabsashadeennii baynu kaga gudubnay ilaahayga weyn ee macbuudkayhina roobkii iyo raxmaadkii buu inoo shumay waynu ku raaxaysanay maanta quruxda gobolka waanu ooyi gaadhnay markaanu soo gelaynay shalayna abaar bay ahayd ilaahay baa mahaddaa iskale wixii dawladda iyo dadkuba qaban karayeenna abaarihii waynu ka qabanay waynu kulligeen iswada hambalyaynaynaa xamdina ilaah baynu u naqaynaa laakiin maanta كأنه أمي وحويه وحول بإلهي بالي وحي أنا أي ما دب وحكم با إيمان كرا أهنتي كذا عديتكم إن أنو تعسيك كأنه إن أنو ذاك صاعقنا إن أنو صلاة نبأنا أمي وحير أو عاومة نوانو سدنا أو ككوبا أو جددي قرنكا أبارة حلو سمية أي نوسو ديكتي أي نقصو عاوسي oo $12,000 ayaan sidnaa maanta dadweynaha tukub ayaan u sidnaa waa tacsi gobolka tagdheer barasaabkeeda oo aanan runtii u mahadnaqi karayn soo dhaweynta iyo ixtiraamka iyo wanaagga aniga iyo wafdiga noo muujiyay intii aan gobolkiisa joognay oo ilaahay mahadiga ha ka gaadhay halkana noo soo raacay baa walaalayaal idin faahfaahinaya 12,000 sida gudidii ay u soo qorshaysay annagana nagu saaciday ay sharafteedana siisay inaanu tukub tagno oo dadka u geyno waan idin wada salaamayaa aad iyo aadna waa u mahadsantiin khayr baan idin rajaynayaa Somaliland ha noolaato dalkeenu horumar ha gaadho isku duubnideenu ha sii waarto ha sii weynaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asi kastaba ha ahaatee marwada kuwaad ee dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isla maanta bacagaheeda ku tagtay tuulada Tukub isla markaana deeqdaasi gudoonsiyay dadkii halkaasi ku sugnaa mana aha markii ugu horeysay ee mas'uuliyiin noocan oo kala ah yimaad deegaanka Tukub ay mas'uuliyiin noocan oo kala ah cagahooda ku tagaan halkaasi Maxamed Aadan Dirir wararka shabakada caalamiga ah ee Aynaba News magaalada madaxda gobolka Saraar ee Aynaba